aan ku bilownay gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa booqday xeebta weyn ee Lido sida warkan uu ku faahfaahinaya wariyahana Cabdishakuur Shaasha. gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamed Cumar Finish oo ay weheliyaan xubno ka tirsan maamulka gobolka Banaadir iyo kan degmooyinka Muqdisho ayaa booqday xeebta Lido oo ah goob xilliyada habeenkii ay isugu yimaadaan dhalinyarada odayaasha siyaasiyiinta iyo waxgaradka Soomaaliyeed kuwaas oo u raadsadan nasiinyo. Cumar Maxamed ayaa salaamay qaar ka mid ah dhalinyaradii uu kula kulmay halkaas waxaana dhinaca kale uu booqday goob ay farda ku kaxaynayeen dhalinyaro farda barad ah oo lagu bareeyay isla xeebta Lido. gudoomiyaha ayaa sidoo kale indheeyay xarumo lagu qaxweeyo xilliyada habeenkii oo ku yaala isla xeebta Lido waxaana halkaas uu ku gacan qaaday dadkii joogay waxaana gudoomiyaha uu muujinayay dareen u dhigma in dawladnimadu ay tahay shacabka oo la dhex galo. Lido waxay ka mid tahay goobaha xilliyada habeenkii nasiinada loo tago waxaana ku qaxweeya dad badan oo ku nool gudaha Muqdisho waxaana xusid mudan in gobolada qaybtood looga yimaado in lagu nasto laguna damaashaado xeebtan Lido. waxaana Cumar Finish gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ay qayb ka noqonaysaa howlaha loo igmaday indhaynta uu ku tagay xeebta Lido. Cabdishakuur Shaasha SBS Muqdisho.